السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم اجعلنا هادين مهتدين. إلهو نغدك كوا هنونسان دادكنا هنونيا دمان دادكا سوماليات برنامجك قفاعو كداواني سومالي كنديان تي في كنا دقيسانيا راديو بورمي CKMS 102.7 FM. dadka barnaamijka dhageysanaya maanto maalin Arbaca bisha November 26 2025 dadka Soomaaliyeed barnaamijka dhageysanaya culimadu waxay yiraan saddex xagaday hagaagan bulshada ayaa hagaagta madaxda salaadiinta garaadada oqaasha malaaqa iyo nin kasta oo ay dadku dhageystaan hadduu hagaago oo runta iyo cadaaladda ku dadaalo bulshada midnimadeeda ku dadaalo dadku wuu hagaagaa madaxdaana uu koowa culimadu haddii kitaabka quraanka iyo sunnada sidii ilaahay u soo dejiyay loogu dhaqmo dadka loo faro bulshadu way hagaagtaa dadka lacagta liisakada waqtigii loogu talagalay hadday bixiyaan bulshadu way hagaagtaa dadka barnaamijka meel walba ka daawanaya waxaynu baryahan oo dhan arkaynay beesha ciise oo cabanaya oo Somaliland madaxdeedii leh ballan bay nala galeen way ka baxeen qofka muslimkana waxa loo baahan yahay siduu nabigu yiri qofka muslimkii fulana uu noqon karaa bakhaylna uu noqon karaa beenaale ma noqon karo odayaal waaweyn oo Hargeysa tagay oo ballan loo qabta haddana wasiirka daaqiligu hadlay iyo amnigu dabeedna jeediyay mowqifka Somaliland waxaan ummadda Soomaaliyeed la wadaagaya bal waxaad ila daawataan saakana waaba waayeeleh maqaalay warlaay ma lagu warramay gobolka Awdal saaka waxa ka taagan bal ila daawada oo arka shacabkii oo kacsan iyo salaadiintii ugaaskii iyo madaxdii Somaliland oo shir ku jira bulshadiina aad u kacsanta ila daawada odayaasheenu markay noo soo baxaan waxay yiraahdeen way noo sheegayaan duulla waynu fulaynaa halka barnaamijka aad ka daawanaysaan waa Somali Canadian TV kana dhageysanaysaan radio Borome CKMS 102.7 FM waxa daawataan bulshadii oo kacsan oo leh saylac iyo Somaliland kala doorasho weeyay Awdal waxaan imikana idin sii deynaya xildhibaan ka mid ah xildhibaanada Somaliland oo ka hadlay arrintan iyada ku soo dhawaada barnaamij horta waxaan leenahay salaamaad min kulli aafaat waxaan sidaa u leeyahay xukuumaddan uma eka xukuumaddii waddankan samati bixinaysa
haddii go-aankaa aad gaadheenad xukuumadda gobolka awdal ay ka gaadhay iyo silal ay ka noqonayso waddankan adaa ugu sarreeye digreeto ku soo saarray awdalna waxaan leeyahay markuu soo saaro jawaabtiisa markay sidaas tahay ummaddayada waxaan leenahay cirro waxaan leeyahay haddii wixii aan kuugu ololaynay aad ka baxday horta anigu nin baan ahoo raaligeli maan ummadda reer awdal siinay ololihii aan ka galeen cirro ugu ololeeyey ما فيلين إن أمضي يدقيم أي نقطة. بسم الله الرحمن الرحيم وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم السلام عليكم لما أنتم بهذا الصحافة دا اللي مهد علينا يا مضر أوضلنا لما أنتم مهد علينا يا ورطوح علينا سلامات من كل آفات waxaan sidaa u leeyahay xukuumaddan uma eka xukuumaddii waddankan samati bixinaysa markay sidaas tahay ummaddayada waxaan leenahay cirro waxaan leeyahay ummaddayada baan u hadlayaa cirro waxaan leeyahay wal madaxweyne ilaahu maya iyo haa meel kale hatee nagaga wadsinba ummad yaa lagu alla baryaa waxaan filaynay maaha go-aankii xukuumaddu gaadhay haddii ay ka noqonayso adigaa waddankan mas-uuliyaddiisa leh ummadda la hadaloo u sheeg laakiin ummadda niman jahwareeriyoo shaqaalahaaga ah ha u soo dirin ummaddan annagaa matale annagayna doorteen annagay mas-uuliyaddii naga saaran tahay annagaa kuugu ololaynay dee haddii wixii aan kuugu ololaynay aad ka baxday horta anigu nin baan ahoo raaligeli maan ummadda reer awdal siinay ololihii aan ka galeen cirro ugu ololeeyey ma filaynin in ummaddayada geem ay noqoto kubadeedoo lagu ciyaaro geem kubadeedoo lagu ciyaaro in ummaddayada ka dhigto ma aanaan filayn way isa dhacday reer awdalna waxaan leeyahay war hadduu cirku dhiig dhalayo qadiyaddiinaas idinkaa leh waa xaq aad leedihiin cidna hawdaba fadhiisanina difaacda halka barnaamijka aad ka daawanaysaan waa Somali Canadian TV kana dhageysanaysaan Radio Boorame Soomaalida hore waxay u tiri taladu waa saddex mid ku dhaaftay mid aad garan weyday iyo mid kula gudboon waxaan bariyahan oo dhan lahaa oo aan la hadlayay beesha ciise iyo beesha gadabuurso islaaxu daata bayn waar idinku cadownimo haystusina waar dad wada dhashay baa tihiin waar waa laydinku dhex jiraa maanta xaqiiqadii baa dibadda timi shalay odayaal waaweyn oo ciise laga qayli siiyey awooddoodiiba exercise lagu sameeyey maantana reer awdal bay taagan tahay labadaa reera isdhalay ee beesha ciise iyo beesha gadabuursina dagaan bay wadaagaan inaan iyo abtigii wey waxay garan waayeen iyaga inaan loo dhaxayno iyagu wada fadhiistaanoo wada hadlaan waa nasiib darrooyinka ku habsatay wey qola Itoobiya iyagoo jooga oo diridaba joogay ka soo hanjabayaan kuwa kalena iyagoo saylac joogay ka hanjabayaan anaa jooga kaale bay leeyihiin halka ayaa ka faa'iideystay siyaasi dan leh iyo maamulka isku magacaabay Somaliland waanan ognahay halka ay ka taagan yihiin labadaa reer ee wada dhashay ee dhexda ugu jiraan waxaad ogtihiin walaalayaal wixii ka dhacay Gooja Cadde cidna kama qarsoona odogeydeen dulmigii iyo dhibaatadii shacabka loo geystay dadkii laga laayay maantana waa maxay waa dad jiro oo maamul ah kuwa aad arkaysaana waxa lagu kari laayay idinku isku yimaad wax wada qabsada waxaan dhexda ku jira haynaga baxo deegaanku inaga badan nimcadu inaga badan inaan iyo abtigii baati waxaase ummadda la wadaagaya oo aan reer awdal gaarsiinaya inay ogaadaan maanta iyagu way ku jecel yihiin oo macnaheedu waa maxay
adigu waad jeceshahay Soomaaliland laakiin Soomaaliland kuma jeclaa had iyo jeer waxa idinku socdaa wax loogu yeero dadka Hargeysaba lagu hayo dhulkaynu wada leenahay dagaankaynu wada leenahay calankaynu wada leenahay waad ogeydeen taariikhda dib ugu noqon maaye in dagaaladii sokeeye labada reer oo wada socda dib idin gaarsiiyeen ilaahay inta odayadeen iyo aqligeenii lagu badbaaday istiraatiijiyad kale marka la eegana in badan Soomaalidu ma oge halka aad ku jirtaan ay u baahan tahay aqli iyo deganaansho iyo waxa aad maanta ku caanamaasheen oo gobolka Awdal magaalada Boorama u dhisantay oo Soomaaliyo dhan u jeceshahay nabadgelyo awgeed maanta waxay nila gudboon inay idin ka shaqaysaan dantiina inay deegtaan waa maxay dantiinu inaad power exercise samayn kartaan inay idin noqon kartaan dad istaaga oo ah dad wax noqon kara inaad horta iska dhaadhicisaan weli ma rumaysnidin isaaq inaad hoos joogtaan iyo ciise mooyo idinku waxba noqon kartaan way idigu adagta waana psychological way idinku waxba noqon kartaan oo gobol qaniya baad leedihiin ciid titanium oxide la yiraahdo leedihiin beeraley baad leedihiin baasiin baad leedihiin macdanta noocyadiisa kala duwan baad leedihiin aqoontii iyo wixii leadership kala ahaana waad leedihiin laakiin dad kale idinka faa'iideysanaya idinku kama faa'iideysanaysaan waxyaalaha bilaadanka ku dhacayna ka mid tahay kaligiin ma Soomaaliyo dhan ayaynu arkaynaa inagoo oo qaniya inaan ka baahanahay hadaba waxaan leeyahay dadka barnaamijkan meel walba ka daawanaya gaar ahaan reer Awdal tala maanta kula gudboonta waxaan idin siinay Soomaali ka mid baa tihiin iyaguna ka go'i maayaan midnimaduna waa waajib diiniya oo Ilaahayna amray ninna cadhaysan adiguna inaad biya raaciso adiguna aad sii raacdo meel ku gaari maysid waxa jira hadal kullu waa xadiis la yiraah kullu waa qowl la yiraah hadalkaasi wuxuu leeyahay ahbib habibaka hawdan تعيل قفها وذا جعلانين نعيب قفها وذا نعن كي أجعليد بابري لغا يابين الشيسان كي نعبيدنا وحلقا برينا الشيسان كاد جعليدا إس عدو ستان إذنكو سومالا وجعش لكن سومالا نما جعلا حقيقة أنا الشيء إن بدلنا هذا الله يقصر دعية سومالي لان إن لبربريات ربطها سومالي لان واديدان تهي حامدو لبا reero wada dhashay weeyi waxa aan leeyahay mowqifkiina maanta reer Awdal ilaahay wuxuu inaga dhigay ummadda Soomaaliyeed ka mid ah mowqifkiina inuu cadaado maanta waa muhiim go'aan adag ma aad qaadataan talana aad ku midowdaan aad yeelataan Awdal forces inaad samaysataan waad ku qasbantiin anu talada aad siinay waxa weeye maanta qaniya ka goysa ma jecli fidno ما جعل ديك مسلمين لداديو لكن مركا أي تمادو ظلمي الدين توي كهدش إسلام خنو كهرلي وحا أد حقو لا يدهينا إن أتسيو ناكسنو راتساتو أو أد هادشو أودي مركا أديالي كرتنا أديالشو أديكو وحرن تهي أديكو من دمادا كشاقيه أدو والله نمادا توس حقوق دي الله هيدين ودبا مقان لبيه سيديتن باب برلمانka lagu yeeso 13 baad leedahay waa ogtiin madaxweynaha hadda jooga ninkii yidhi buu ahaa koonku inoo buuxa markii la yiri dul bahantay oo sangali iyo gad buusa baxaya alaysa minkum rajulun rashid miyaanu inagu jirnin caaqilo dakile waxa la reey Awdal rag iyo dumarba faray isku fiiqina idinku haysleeyaynina ka shaqeeya sidaad awoodiina u midayn lahaydeen وأنا تفقترها صومالي كان في راديو بورمي إذنك يا عيسانا مسلحات يولال نمو يولاقيناتك شقيسان أيان ذي الله انت أينو مورك لها وذا كل مدونه وأنا حامد سلطان علي علمي سلطان